وقصة aad u xanuun badan waa wiil rodaadiisu ay tahay 4 sano jir kana soo jeeda wadanka Syria ayaa waxa uu kaligiis ka soo tagay Syria waxaana uu soo maray dhul aad u baaxad weyn ugu dambeyntii waxa lagu arkay xuduudka Jordan waxa gacanta ku dhigay hay'adda UNHCR waxay weydiiyeen yaa kula socda waxaana uu ku jawaabay cidna ma socoto waxaana ay kaligay waxaan ka soo tagay dalkayga waxaan la soo baxsaday naftayda gacanta waxa ku watay baac waxaana ugu jiray dharkii walaashii iyo hooyadii oo lagu dilay duqeyntii cirka isagoo yiri waxaan nasiib u yeelan waayay inaan familygayga mudadkooda arko laakiin ma doonayo inaan xasuusto reerkayga waayo waxaan u heliyaa dharkooda aan sito ku jirnaa xasuuq baan mana haysana garab iyo carab عجب iyo muslimiin oo dhan waxaana go'aansaday inaan soo haajiro xabsi la'aan mana garanayo meeshaan hadda ku suganahay waxa uu yiri wiilkan yari reerkiisa la laayay Syria waxa ka socda xaalad aad u adag xasuuq baan fadlan u ducee hadda naxariis leedahay siina sheer galay walaalayaal waxa qisadan aad u ka xanuunka badan ila socodsiinaya walaalkeena Cabdiraxmaan Lul